waxay ahayd sanadkii 2009 dhismihii isbitaalka kadib oo aan ka war helnay isbitaalka inuu muddo uun shaqaynayn aan isku daynay oo aan ballan qaadnay in wixii aan ka qaban karno inuu isbitaalku shaqeeyo aan u istaagi doono waxaa farxad kale noo ah maanta in dadkii deegaanka ay ka marqaati fureen oo ay sheegeen in isbitaalka maanta uu functioning yahay oo mid shaqeeya oo waxyaabihii markaysa asaasiga laga heli karo waa ku faraxsanahay iyadana salaamaha iyo soo dhaweynta waxa la qabaa walaalihii iga horeeyay iyo inta iga dambay doonta intaba waqtiga oo aad markaysa ciriiri u ah kaliya munaasabadan iyo maantan ka soo wardoonkan aan maanta idinkugu nimid kaliya inaan iswaraysano oo aan xaaladahaas la soo maray aan wax iska dhahno kaliya yaan iskugu nimid maanta waxaa laga dhawaajiyey oo dadku meesha ka hadlay ay sheegeen in isbitaalku uu shaqaynaayo oo daawo uu leeyahay warmacadna ay wax ma arkaysaa taageera ay meesha ka geysato laakiin runtii waxaan dhihi karaa kaliya intaas maaha isbitaalku wuxuu hayaa oo jooga staff u taagan oo yani waqtigooda inta badan geliya in isbitaalkan uu shaqeeyo daawadii lagu yaboohay iyo wixii la soo diray waxa ka weyn mashiinka isbitaalka dhex jooga oo ah isbitaalka dadka ka shaqeeya oo aan helin iyagana muxuu ahaa waxyaabihii iyagana ay mudnaayeen oo si mutadawacnimo isbitaalka ugu shaqeeya iyo dadka deegaanka kuwaas aan rabaa inaan uga faa'iideysto munaasabadan oo aan mahad celiyo staafkaas qiimaha mudan waxaan leenahay waxaad tihiin maarkaysa waxaad tihiin dad geesiyaala waxaad tihiin dad u istaagay walaalahood inay wax u qabtaan waxaa laga yaabaa ninka wax soo diray inuu sanadkii 100 ama $200 uu ku soo yabooha isagoo iska shaqaysto oo ciyaalkiisa la joogo laakiin qof maalin kasta u soo kaca isbitaalkan oo isbitaalka yimaado oo dadkii inuu wax u qabto u yimaado oo aan howl kala haynin runtii waa garan kartiin ma arkaysaa waxyaabaha oo yani qofkaas uu sida uu naftiisa u soo horay waa dareemi kartaan iyagaan maanta aad ugu mahad celinaya anaga ka warmacad ahaan waxaan leeyahay ma arkaysaa aad ugu mahadsantihiin walaalo badana wax ku yaboohay oo wax ku bixiyay haddaan la isu tegin oo aan sidaan oo kale la isu garabsanna waxba lama qaban karo hay-adaha jira adduunyada la yiraahdaa oo waxa maqashaan in hay-adu ay bixiyaan laakiin hay-adahaas sidee wax ku keenaan runtii qof ma arkaysa isma weydiiso waxa wax lagu keenaa hay-adaha arkaysaan qaaraan dad qof wax uu ku yaboohay meel kale wax ay ka soo qaadaan wixii la isu keeyaa adduunyada lagu taageeraa marka dad iyagana intay is ururiyeen oo dadka deegaankoodii ama walaalahoodii iyaga u baahan maanta inay helaan isbitaal shaqaynaya iyo daawo inay helaan ku yaboohay waxaan is leeyahay iyagoo shaqaystay aakhiradoodii oo ma arkaysaa wax badanna shaqaystay haddana wax weyn runtii oo naga go-ay ma jiro sanadkii haddii aan dhowr $100 ku yaboohno oo aan nafteenna ka soo goyno way naga go'daa waanan welina waa ku celinayaa walaalaha dibadda jooga inay sii wadaan inta la helaayo oo ma arkaysaa isbitaalkan uu helaayo cid si rasmi ah ula wareegto hawshiisa ama dawlad buuxin karta kaalimahaas mushaarka shaqaalaha iyo daawada uu u baahan yahay in wixii lagu bixin karo la sii bixiyana weli waa ku sii dhiirigelinayaa walaalahaas waxaan rabaa oo kale inaan uga faa'iideysto maanta inaan nala joogaan xildhibaankeenna xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Umar Cabdullaahi Cadde oo shaqooyin badan qabtay hadda howlaha aan rabo maanta aan meeshaan u yimid ay tahay isbitaalkan iyo deegaankan sidii uu u heli lahaa muxuu ahaa howlaha asaasiga ama adeegyada uu u baahan yahay inuu qayb ka noqdo oo meeshaas nala arko oo uu maanta iyo wixii ka dambeeyay uu istaagi doono kaalinta oo isagana kaga aadan waxaana la joogo walaalkan tahliil agaasimaha caafimaadka Hirshabeelle oo isagana maanta ma arkaysaa wax badan nagu soo kordhiyay haddana ballamo badan qaaday in uu kaalintiisa qaado doono oo dhinaca kaga aadan isagana uu ka soo buuxin doono kuna faraxsan isbitaalka maanta inuu arko marka intaasoo dhan marka la isku soo duubo waxaan leeyahay haddii la istaago oo gacmaha la isqabsado wax badan ayaa la qaban karaa waxaan rajaynayaa inaan mar kale isku soo noqon doono baahiyaha maanta aan aragnayna aan isku dayi doono wixii laga qaban kara inaan ka qabanno inta la qabtayna aan iskaga mahad celino annagoo dhan dadka deegaanka hormuudka ah odayaasha maanta halkan ka hadlay gabdhaha ururka haweenka walaalihii ku tabarucay iyaga laftirkooda qaybta ka geystay oo anas ugu horeeyo oo iyagana ma arkaysaa isbitaalkan qayb kaga aadan ka qaatay kulli inaan annagoo dhan sidii aan hadda ku wadnay hawsha aan ku sii wadno
oo markaasna rajaynayo in hawl midaan ka balaaran aan maalin kale iskugu imaan doono. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.